قف البدنايو رمضان وايمين رمضان وايمين رمضان وايمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام وإذن سلام عليه بقالي ميل والبعدون كأتكن جوكتين وولاشين أم مريم إيوم walaalkiina abu maxamed soo dhawaad walaalahayna qaaliga kusoo dhawaad walaal khayrka idinla jecel insha Allah. walaalahayna qaaliga waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni ahay la noolo quraanka iyo sifaadkii cibaadu raxmaan adoomada wanaagsan sifaadkii ay lahaayeen iyo aayadaha qaybtooda dambe. haddaba waa maxay abu maxamed sifaadkooda? insha allah walaalayaal haddaynu sii wadno qeybaha dambe ee adoomada alle tilmaamaha ay leeyihiin iyo sifaadkooda. قال ربنا جل جلاله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay cibaadu raxmaan sifaadkooda waxaa ka mid ah habeenkii oo dhan alla ayay isku taagayaan. wuxuu waaga u baryayaa ayagoo alla u sujuudsan una taagan. adoomada alle sifaadkooda waxaa ka mid ah inay rabbigooda ay u taagan yihiin habeenkii ayna u sujuudsan yihiin. aayad kalena allah wuxuu ku leeyahay كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عباد الرحمن صفاتكooda waxaa lagu garanayaa waa kuwa habeenkii in yar mooyaane inta dambe oo dhan allah u taagan oo xuso oo cibaadeysto. aayad kalena allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay قال ربنا جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. عباد الرحمن waa kuwo dhinacooda ka qaada gogosha oo ka fogaado habeenka qaybtiisa dambo. ilaahay ayay u istaagaan u cibaadeystaan. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. waxayna baryaan allah ayagoo cabsanaayo haddana rajeynaayo. oo maxay ka cabsanayaan? cadaabkiisa ayay ka cabsanayaan. waxayna rajeynayaan jannadiisa ayay rajeynayaan. wixii ilaahay siiyana way bixiyaan. cibaadu raxmaan waxaa lagu yaqaanaa waa kuwa habeenkooda dhan nooleeya qaybtiisa dambo. alla ayay u cibaadeystaan, alla ayay baryaan. waxayna baryaan alla ayagoo ka cabsanaya cadaabkiisa kana rajaynayo jannadiisa. wuxuu alla siiyana way baxsadaan oo way sadaqaystaan. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحده صلى الله عليه وسلم صلاة مجرته كفضل بدن salaadaha shanta ah ee waajibka ah markii laga yimaado salaad ka fadli badan salaatu leylka ama qiyaamu leylka haweenkii ma jirto walaalayaal ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam. saadaad marka qiyaamu leylka waa salaad aad u qiimo badan walaalayaal. waayo sideedaba dhib walbo iyo dhibaato walbo ama culays markuu kula soo diriso xiliyada lala beegsado inuu ilaahay culayskaas kaa qaado oo ilaahay la baryo waa haweenka qaybtiisa dambe walaalayaal. sir badan ayaa ku jirta qiyaamu leylka ilaa qofku ilaahay waafajiyay maahane. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam waa inagu booriyey qiyaamu leylka walaalayaal. oo wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuha nnaas atcimu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu bil-layl wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata بسلام أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ورددوا أيها النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الطعام cuntada dadka qoodiya wixii ilaahay idin siiyey bixiya wax sadaqaysta. kadib hadda nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay wa afshi salaam salaantana faafiya oo isu gudbiya salaanta wayna ognahay salaanta qiimaha ajarka laga helaa walaalayaal.
sidoo kale nebiga sal ly slm wuxuu dhahay salaam qofkaad garanaysid iyo qofkaadan garanayninbo. kadib nebiga sal ly wasalam wuxuu dhahay waa meeshaan doonine wasalluu billeyl wannaasu niyaam, haweenkiina tukada ayuu nebi sal ly wasalam, dadka marka ay hurdayaan adiga keliya aada soo jeedid runtii ilaahay aada ayaad ugu dhowdahay, markaad sujuudid alle aada ayaa ugu sii dhowdahay, camalkaaga oo dhan wuxuu noqonayaa mid ikhlaas ah walaalayaal, baahidaadoo dhanna markaasaa ilaahay loo bandhigtaa. waayo allah wuu soo degaa ilaa samaa dunya ayuu soo degaa oo wuxuu leeyahay yaa wax i weydiisanayo oon siiyaa wax uu doonayo, yaa i baryaaya oo baridiisa aan ajiibaa, yaa dembi dhaaf i weydiisanayo oo dembigiisa u dhaafaa. fursadahaas ayaa meesha ku jira walaalayaal. saa daraaddeed marka addoommada alle ewan wanaagsan dabcooda waxa waaye haweenka qeybtiisa dambe inay ilaahay baryaayaan oo u waabariisanayaan ayagoo alle u sujuudsanaa oo u taagnaa haweenkiiyo dhan. sidoo kale walaalayaal qeybta dambe aayadda haddaan u imaano, addoommada alleh waxaa lagu yaqaanaa walaalayaal ay tilmaamaha ay leeyihiin waxaa ka mid ah والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفيرسدا آيدانيتي الله سبحانه وتعالى وحليه عباد الرحمن وكو مر والب إلهي وحي ويديستان إنو عذابك سكليحيو عذابك إنو كليحي أي ويديستان waayo sababtoo ah alla cadaabkiisa waa mid laazim ah, meel lagu nagaadana waxaa u xun cadaabka jahannamo. allow cadaabkaaga naga leexi aamiin. addoommada alle waa kuwa markasta allah weydiistay inuu cadaabkiisa ka leexiyo, isagoo isku tilmaamay inay yihiin addoommada alle oo ilaahay gooni u baxsaday cibaaduraxmaan alle isku magacaabay, ay haddana waxay weydiisanayaan alle cadaabkiisa inuu ka leexiyo. u fiirsada aayadda qeybteeda hore waxay ka hadlaysaa inay cibaaduraxmaan yihiin kuwa dadaalayo, qiyaamu leyl ku dadaalayo, alla baryaayo. qeybta dambena waxay ka hadlaysaa inay yihiin kuwa alla ka magangalaya cadaabkiisa oo inuu ka leexiyo cadaabkiisa baryaayo, waana kuwa markasta dadaalayo oo alla baryaayo inuu ka leexiyo cadaabkiisa. allana way baryaayaan wayna baqaayaan, jannadiisa ayay doonayaan inuu geliyo, cadaabkiisana way ka baqaayaan. cibaaduraxmaan waa addoomo sifaad qurux badan leh. cibaaduraxmaan waxay aada iyo aada aga duwan yihiin munaafiqiinta. cibaaduraxmaan ayagoo sidaas alla u baryaayo oo u cibaadeysanaya ayay haddana alla ka cabsanayaan oo waxay ka baqaayaan cadaabkiisa. meesha ay munaafiqiinta ay isku kalsoon yihiin ay u maleeyaan jannada alle cid kasta inay ayaga aga horeeyaan, cadaabka allana inay galayaan aamin ayay ka yihiin, waayo waa kuwo isdhigtay oo acmaashooda u maleeyay inay ku galayaan janno. laakiin arrinka sidaas ma ahane wuu ka duwan yahay, waayo ilaahay inaad rajaysid jannadiisa inaad rajaysid, cadaabkiisana aad ka baqatid ayaa loo baahan yahay. waa inaad dadaashaa, laakiin laguma kalsoonaado camal aad qabatay. acmaashaadana ha ku kadsoomin oo janno kuma geynayso, laakiin waa dariiqi jannada loo maraayay. jannadana waxaa lagu galaa naxariista alla ayaa lagu galaa. allaha naga mid dhigo cibaaduraxmaan. amiin amiin. saa daraaddeed marka walaalayaal addoommada alle tilmaamahaas ayay leeyihiin walaalayaal. aayadaheena maanta marka waxaynu ka fahmaynaa addoommada alle inay yihiin kuwo cibaado badan, haweenkii oo dhan ilaahay u taagan. ilaahay hanaga dhigo kuwa haweenkii oo dhan ilaahay u taagnaado walaalayaal. tan labaadna waxaa waa walaalayaal addoommada alle sifaadkooda waxaa ka mid ah waa kuwa dadaalaya haddana baqaaya. labadaasi ayaa lagaa doonaya inaad isku dartid in acmaal wanaagsan la imaadid haddana adoo ka baqaa ilaahay cadaabkiisa, oo acmaashaada iyo nafsadaada yaysan ku sirin oo ha ku kalsoonaan nafsadaada. mar walba ilahay waxaad ka barisaa inuu ilaahay acmaashaada ka aqbalo, jannadiisana uu ku geeyo walaalayaal. dhammaantana ilaahay jannadiisana geliyo.
mu'miniinta oo dhanna sidaas ayaa lagu yaqaanaa walaalayaal. mar walba acmaal ay la imaadaan waxay ka baqayaan inuu ilaahay ka aqbali waayo ayay ka baqaan, halka munaafiqiintana ay ku kalsoon yihiin nafsadooda. saa daraadeed marka walaalahayga qaaliga sifaadkaas u jeedin waxaa iskale cibaaduraxmaan. haddii aan la imaadno sifaadkaas oo dhan waxaan ka mid noqonaynaa cibaaduraxmaan. ilaahay hanaga dhiga cibaaduraxmaan kuwa ka mid noqdo. ilaahayna hanagu daro dadka uu jecel yahay, uu soo dhaweystay oo isku magacaabay oo ku tilmaamay cibaaduraxmaan. Amiin. insha allah marka barnaamijkeeni ahaa la noolow qur-aanka halkaas ayuu ku egyahay. subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illaa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk. wassalaamu calaykum bish ramadaan waa bilan jecelnahay, bish ramadaan waa bilan sugayne, waa bilan sugayne. isu naxariista, isu soo dhawaada, isu duubnaada weligiina.